Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyihii hore ee NISA oo hadda ku sugan dalka Turkiga ahna bannaan joog wuxuu asbuucan bixiyay waraysi dheer oo si weyn loo wada sugayay waxaana si weyn loo eegayaa sida uu Fahad Yaasiin uga jawaabo iyo sida ay noqoto falcelintiisa ku aadan kiisas waaweyn oo ka dhacay gudaha dalka intii uu joogay hay'adda NISA. kiisaska aadka u culus ee lagu eedeynayo Fahad Yaasiin 5 sano ee la soo dhaafay ayaa waxa ugu waaweyn kiiska sargaalada Ikraan Tahliil oo aan raq iyo ruux lahayn kaasi oo qoyska gabadha iyo siyaasiyiin ay ku eedeeyeen hay'adda NISA oo madax ka ahaa Fahad Yaasiin eedaas oo ahayd mid culus oo dalka gelisay khalkhal amni iyo kala aaminba xoogan ayaysan wax jawaab ah ka bixin madaxdii hore ee hay'adda NISA waxaana adkaatay inay hadlaan raggii lagu tuhmayay kiiskaas ayagoo afka xirtay sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo gurigiisa la weeraray laguna laayay ilaaladiisa isagana dhaawac loogu geystay ayaa isna dacwad ka gudbiyay madaxdii hore ee NISA oo uu ku eedeeyay inay lahaayeen amarka lagu weeraray gurigiisa wax jawaab ahna kama bixin madaxdii hore ee NISA sidoo kale weeraro siyaasadeed oo ka dhacay Muqdisho ayaa lagu eedeeyay madaxdii hore ee NISA inay qayb ka ahaayeen ayna soo abaabuleen marka intaas oo kiis oo mid walba leeyahay culayskiisa la isku daro lana eego dhaqamada madaxdii hore ee NISA waxay dad badani qabaan inay adag tahay in kiisaskaas aysan si fudud uga baxsan doonin madaxdii hore ee hay'adda NISA haddii aan dhinaca kalena eegno waraysiga aan weli dhammaan ee uu bixiyay Fahad Yaasiin wuxuu lahaa dhowr xagal oo kala duwan Fahad Yaasiin wuxuu ku dheeraaday inuu dadka isbaro isagoo ka sheekeeyay CV-giisa aqoontiisa iyo shaqooyinkii uu soo qabtay Fahad Yaasiin wuxuu aad u dhaliilay siyaasiyiin ay muddo iska soo horjeedeen kala fikirna ahaayeen isagoo si aan looga baran siyaasiyiinta Soomaalida uga hadlay qaarkoodna ku tilmaamay inay yihiin xanuun khatar ah oo ku jira siyaasadda Soomaaliya haddii aan midkood ka soo qaadano siyaasiyiinta uu Fahad Yaasiin aadka u dhaliilay waxaa ka mid ah hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo muddo dheer ahaa hogaamiyaha Jubbaland Fahad Yaasiin wuxuu si fudud u adeegsaday tusaalayaal dhow oo ay fududahay inuu qof walba sawir fudud ka qaato Axmed Madoobe Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wuxuu soo qaatay in Soomaaliya ay 4 madaxweyne dooratay intaasna uu Axmed Madoobe ahaa ninka ku magacaaban madaxweynaha Jubbaland wuxuu sheegay inuusan wax doorasho ah oo xalaal ah uusan qaban aysan jirin cid la tartantay sidoo kale wuxuu soo qaatay in Axmed Madoobe yahay shakhsi dawlad kasta oo Soomaaliya ka dhalata loo adeegsado wuxuuna markhaanti ahaan u soo qaatay in Axmed Madoobe dagaal la galay dawladii ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed iyo tii Xasan Sheekh Maxamuud ilaa tii Farmaajo isagoo ku daray inuu dibna u dhibi doono dawladda cusub ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha ahaatee waraysiga Fahad Yaasiin wuxuu ahaa qabyo waana eegi doonaa inta dhiman iyo sida uu uga jawaabo kiisaska loo haysto iyo meelaha uu beegsado kulanti dambe oo xiiso leh daawadayaal intaan ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso leh